timaha baalasha indhaha oo shaqadeeda ahayd qofka inay ka difaacdo buska, dabeesha iyo qashinka indhaha geli lahaa oo markaan isha dib ugu soo laabanayo oo isha dhibaateynaya meesha ay ka difaaci lahayd waxyaabaha qofka u keeni karo iyo qofka haddii xaaladan ay ku dhacdo waxyaabo uu dareemi karo iyo sida laga yeeli lahaa ayuu maanta muuqaalkeena ku saabsan yahay. Hor intaan muuqaalka sii gudagolin waxay idin ka codsanaa muuqaalka like gareysaan asxaabta aan nasiib u helnay muuqaalka aragtan inaad la wadaagtiin. Xaaladan oo aad sawirkeeda u jeedin oo ah isha baalasha indhaha oo difaac la rabo inay isha ka difaacdo in ay isha gudaha u soo galayso kadibna waa dareemi kartaa timaha baalasha indhaha haddii gudaha u soo gasho in ay xoqayaan muraayada hore isha meesha madowga meesha roocad oo iskara loo yaqaano kadibna qofka ay ku abuureyso dhibaato badan oo culeys badan ay ku abuureyso oo keeni karta xataa in qofka ishiisa ay daawac soo gaarsiiso oo isha xoqdo sidoo kale qofka xitaa unan ka seexan karin oo ishii haddii timaha baalasha indhaha gudaha u gasho inay muraayada hore isha xoqdo oo qofka uu dareemayo inay isha ciid kaga jirto kale oo maarto in ishna wax ka bixiyo laba oo xataa xoqis badan uu keenayo ay qofka xaaladan u keeni kartaa. Marka intaas laga soo tago waxyaabaha keeni karo qofkan oo xaaladan ku sababi karto ayaa ah xaalad la yiraahdo blepharitis ama caabuq baalasha indhaha ku dhaco kale tarakoomada oo caruurta ku dhacdo kale xaaladan way u keeni kartaa. Sidoo kale waxyaabaha keeni karo waxaa kamid ah qofka haddii xitaa uunan caabuq ku dhicin jug soo gaarto kale waxyaabaha qofka dareemaya waxay tahay in isha ciid kaga jirto kale uu dareemaya maarto in isha wax ku wareegsanayaan uu dareemaya waxay u keeni kartaa xataa inuu araggiisa ay saameyso oo araggiisa hoos u dhac weyn ay sameyso aragga waliba nooca ay sameynayso waxay tahay nooca astigmatism ama hore mawduucan halkaan soo dhigaa ugu hadalnay. Marka laga soo tago waxyaabaha sababayo qofka waxyaabaha uu dareemayo haddii qofku isku arko maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo xalkeedu muxuu noqonayaa xaaladan oo loo yaqaan trichiasis xalkay noqonaysa waxay tahay xilliyada koowaad waxaa laga yaabaa dhakhtarka indhaha ama qofka professional u leh dhakhtarka indhaha dabcan in uu ka jaro oo ma taqaana kuwaas ishaas timahaas baalasha indhaha gudaha u galay inuu ka jaro oo qofka si lafkiisa kama jari karo waxay u baahan tahay xirfad u baahan tahay dabcan dhakhtarka indhaha marka intaas laga soo tago haddii ay timaha baalasha indhaha aad u fara badan yihiin oo kale ayadana haddii in la wada jaro u baahanayaan marka qaar oo la gagaabiyo xitaa marka qaar waxaa laga yaabaa in jarin loo baahnin oo qofka in la siiya laga yaabaa contact lens embolish indhaha oo ka difaacaysa timaha baalasha indhaha gudaha u gali lahaa iyo dhaawac indhaha u gaarsiin lahaa. Xalka saddexaad marka qaar oo loo baahnayo waxay tahay qaliin qofka in saalada la geeyo oo qaliin loo sameeyo. Intaan soo sheegno guud ahaan waxay ahaayeen waxyaabaha keeni kara xaaladan oo trichiasis loo yaqaano oo dad badan ay la dhiban yihiin iyo sida loola tacaalo haddii qofku arko. Adiga muuqaalkan daawanayo qof leh xaaladan ma aragtay ama qof family-gina kamid ah xaaladan ku aragtay xalka markaas aad sameyseen muxuu ahaa qaybta comment wili wadaaga intaas ay muuqaalkeenu ku eegay haddii aad muuqaalkeena ka faa'iidaysatay like noo saar meel walba adduunka joogtiin waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo.